أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idiin salaamayaa walaalayaal meel kastoo aad joogtaan xilligii aan idiin qabtay yaa la soo gaadhay marka cid walba oo daawan doonta filinkan waxaan rajaynayaa inay wax badan ku qaadan doonto ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu maslaxaday waafajiyo walaalayaal waxaan jeclahay marka hore intaan hadalkayda u gudagelin inaan muqaddimo yar aan ka hormariyo muqaddimadaasoo ah waa marka koobaade waxaan u arkay inaan kelmaddan maanta aan jeediyo inay tahay kelmad lagama maarmaan igu ah ama fardul cayn ku ah qof kasta oo deegaanka ismaamulka soomaalida ka soo jeeda marxaladdan inuu ka hadla inay qasab tahay aan u arkay ta labaad waxaan idiin sheegahayaa labada jaanib oon aad uga hadli doono oo ah ONLF iyo maamulka dowlad deegaanka labadaa garab midna in aanan colla ahayn ONLF waa urur aan muddo dheer ka soo tirsanaa xoog badan ku soo bixiyey xoolo badan ku soo bixiyey daal iyo haraad aan u soo maray adduunkana aan ugu nacbahay ciddii dhibta sidaa darteed waxa aan ka sheegayo oo aan ka sheegay doono oo dhan ma aha wax aan ku magac xumaynayo ama aan shakhsi gaara ugu dan leeyahay ma aha ta labaad waxaan kale oo aan sheegayaa ismaamulka dowlad deegaanka oo ugu sarreeya madaxweyne mustafa maxamed cumar inuusan ahayn maamul aan gaarna u nacbay xidhiidhna aan la leeyahay inuusan ahayn mustafa weligana maanan is arag mana aanaan wada hadlin cid xidhiidh isaga laleh oo la shaqaysana xidhiidh lama sii lihi taa waxaan idinku qadimahayaa qaar badan oo dhallinyarada ka mid ahoo moodaya ruuxii kelmad jeediya qandaraas buu soo qaatay iyo meeluu ku waxaysan yahay kuwaasaan kalsooni ku siinayaa intaa haddaan ka soo gudbo waxaan jeclahay inaan dhowr qodob ka hadlo muxuu ahaa isbeddelka Itoobiya ka dhacay muxuu ahaa wadahadalka ONLF ay gashay iyo heshiiska ONLF ay la gashay Itoobiya muxuu ahaa heshiis noocee buu ahaa hadda marxaladdan aan joogno maxayna la gudbaan ONLF yaa leh mawduuca qaybta ugu weyn wixigaasaan Itoobiya insha Allah ku saari doonaa qaybta gabagabada ahna waxa ila quman hadday maamul deegaan tahay iyo hadday ONLF tahay iyo hadday shacab weynaha tahay waxa ila quman baan insha Allah soo jeedinaya walaalayaal Itoobiya taariikhiyan siyaasadeeda waxaa lagu macneeyaa inay tahay El Niño iyo La Niño badda Pacific labadeeda dhinaca galbeed ee Pacific ay waxa ku yaala Australia dhinaceeda barina waxa ku yaala Peru oo Latin America kaga aadan laba dabaylood oo la yiraahdo El Niño iyo La Niña ka kala kaca markay Peru markay qabowdo Australia kulaato roob badan iyo daadad baa ka daa geeska Afrika iyo Latin America abaara ka dhaca markay Australia qabowdana geeska Afrika iyo Latin America roob baa ka daa saasoo kale Itoobiya siyaasadeedu waxay ku jirtaa ahaan ciir away oo afka laga xiray way waligeedba 1930 ilaa 74 waxay la salaasay haanta intuu afka ka xiray yuu ruuxay haanta gudaheeda bareesharka ku jira ee ay ku dilaaci karto reer galbeed baa korka kala socda waligeedba marka la ogaado inay haanti qarxi rabto oo 74 ay qarxdo daboolka laga qaadaa waa laga neefiyaa neefintaasi isbeddel ka dhacay Itoobiya ma waxaa loogu talagalay dadkii 30 sano ama 15 sano ama 28 sano siyaasaddu ka khaldanayd ee haanta ku jira ee la ruuxayay inay bannaanka u soo baxaan oo neefta jiidaan kuwii ruuxayeen in haanta lagu rido 75 markuu militariga Itoobiya waddanka qabsaday ee boqortooyadii iyo intii la noolayd haanta lagu riday shacabka Soomaalida ogaadeen ee DDS ku nool haantaas ciirta ayaa kuwii xayla salaasiye boqortooyada la noolaa yay la mid noqdeen oo haanta lagu riday 15 sano 75 ilaa 91 bishii May yu xayla salaasa dadka ruuxay ee mingista xayla Maryam yu ruuxay shucuubtii aadka loo ruuxay Tigray iyo Eritrea iyo Soomaalida ogaadeen ay ahaayeen yaa ugu badnaa shucuubta Itoobiya oo dhanba kuwa la ruuxay ha noqdaan mar labaad mar saddexaad aan iraahdo markii daboolka laga qaaday si ay neefta u jiidaan maxaa dhacay haddana shacabka Soomaalida ogaadeen mar kale dhergigii dadkii la ciqaabahayay haanta mar labaad lagu ridahay ayay haddana kow ka noqdeen 91 ilaa iyo 2018 bay TPLF macna ma samaynayso intii u dhaxaysay Haile Mariam Desalegn iyo Meles Zenawi
period ka u dhaxeeyay wax macnaa ma sameynay sababtoo ay tahay haantu sideedii bay u xidhnayd sideedii baana loo ruxayay sidaa daraadeed markii la arkay temperature-ka shacabku haantu pressure-keedu inuu hadda marayo xilligii ay qarxi lahayd Maryan Desalegn raganimo uu leeyahay iyo garasho uu leeyahay iskumuuna casirin amar baa la siiyay Ethiopia waxay ku nooshahay iyo waxa maamulaba siyaasadda inaga koreeyo weeyaan markii ay amarka lagu siiyay ee Abiy la keenay Abiy waajibka koobaad ee la siiyay bilada uu ku qaadanayay waxay ahayd inuu colaada 20 jirsatay u dhaxaysay Ethiopia iyo Eritrea inuu soo afxirey Eritrea dambay u ahayd maxaa dhacay marka waxaa jira wax la yiraahdo byproduct waxa weeye shidaalka hadda wadankeena laga qodahay ujeedka koobaad ee laga leeyahay waa in energy laga helo laakiin faa'iidooyin kale oo fara badan buu dabada ku wataa laamiga kamida waxa laamiga la saaray waa byproductiga petrolka weeye muxuu ahaa caagaga kamida lubricate-kan iyo waxyaalaha baabuurta kale loo adeegsanaya kamida waxaas oo dhan waa byproductiga heshiiska Ethiopia iyo Eritrea wuxuu ahaa oo ku jiray xoogagii Ethiopia mucaaridka ku ahaa ee ay Ethiopia Eritrea gacanta ku haysay in la siiyo fursad ay Eritrea isku soo dhaafiso iyaguna si nabadgelyo ay wadankooda ugu noqdaan soo mucaaridadaas ama ha noqoto Gimbood 7 ama ha noqoto OLF ama ha noqoto ONLF dhammaan mucaaridadii Eritrea joogay waxay ahayd byproduct ka dhashay heshiiska labada wadan u dhaxeeyay buu ahaa wax wada hadal oo urur gaar ah lala galay ma uuna jirin axmaarada oo Gimbood 7 oo ragga ciirta wax ka lula ah oo haanta ka lula automatically bay sida farta u akhriyeen markiiba 24 saac gudahood markii cunaqabatayntii laga qaaday waxay ku dhawaaqeen inay dhammaan mabaadi'dii ay ku socdeen oo ay ka tanaasuleen dawladdan ayna kaalmo uga baahnayn sababtoo ay tahay haanta inay gadaanka qabsadaan oo kuwa ruuxi doona ay ruuxaan tikreena ay ku guraan that was their mission waayo rag waxay ahaayeen turubkana yaqaana haantana wax ka soo lulay oo sida loo lula yaqaana ayay ahaayeen ma ay ahayn kuwa weligoodba iyagu haanta hadba qolada la ciqaabahayo lala ciqaabo ma aynan ahayn ONLF inkasta oo shakhsiyan aan si gaar iyo si guud oo publicaba aan uga hadlo heli kartaan farta ma aysan akhriin farta ONLF ma aynan akhriin waxay dhaxal siisay 9 jeer inay dawladda Eritrea ay codsi u soo dirto Addis Ababa ay physically u timaado 2 jeer oo kamidana madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo wasiir Ahmed Shide yaa Asmara physically u tagay just political photo in lala galo ONLF political photo in lala galo wixii heshiis la meesha ka dhacay ma jirin waayo farta ma aynan akhriin Abiy Ahmedna wax la jecla oo wala ONLF wala Gimbood wala wixii uu qabay ma lahayn nin kursigana la keenay waajibna la siiyay buu ahaa byproductigana Eritrean security-keeda u cabsatay ma ayna oran karin ma aan ahayn qalbi dhagaxo fil Soomaaliya shakhsi oo inta indhaha ka soo xidhay ay soo dhiibayso dadka meesha joogay ciidan 400 oo nin kor u dhaafahaya oo ONLF joogay 30 iyo dheeraad kun oo Oromo joogtay intaasoo axmaara joogtay intaasoo Tigray joogtay dad ay soo dhiibi kartay ma ahayn Ethiopia dil bay ka xukunaayeen wada hadalka iyo heshiiska Eritrea in dadkan wadankooda ay ku noqdaan bay ahayd ugu dambeyntii markii dhammaan soo xarootay waxa Ilaahay mahadiyay in just markii dib sawir la soo galay oo soo noqotay mar saddexaad markii aynu wadanka nimid oo ONLF gudaha soo gashay su'aal baa la weydiiyay political question ku muxuu ahaa waxa la yiri what is a mission key objective key wax ma ka bedelaysaan siyaasadiina ma yeedheen mowqifkayga ma bedelin marka Soomaalidu waxay tiraahdaa garta intaadan geedka tagin adaa la isla garrama haddii adigu garta aad iska hesho oo markaad isgarramiso aad aragto inaad laga garhelayo waa inaadan geedka tagin Soomaa bal adigu isa saar ciidan 20 iyo dheeraad sano duurka ku jiray oo kula dagaalamay oo u dagaalamay inuu garab casa qabsado oo u dagaalamay inuu herar iyo diri dhaba qabsado oo u dagaalamay inuu dhagax buur iyo qabri dahar iyo wardheer iyo goday salgiyada ku yaala inuu burburiyo u dagaalamay oo u tabar laa with your logic and mind ma aqbalaysaa inaad oo siyaasadiisa waxba laga bedelin in inta tuuto u xidhood qalabayso oo tababar u furta aad tiraado salgiyadii aad nabad ku xoog ku qabsan weydeen kaale qabsada oo ciidankii fadareeya oo ciidan kaleeto oo loo sameeyay kuwan opposite-kooda ay joogaan logic ma kaarka marka muxuu ahaa caadifada iyo lixjeclada ku salaysan ka weey qodobkaasi mission is over waxa falillahi alhamd
uga mahad celinaya madaxweyne Mustafa Maxamed Umar in uu kaalin muhiima ka qaatay wiilasha 27 sano ee ku soo dagaalamahayay duruuftan ogaa in aan diyaarada lagu garaacin oo la laynin sida muxuu ahaa Daawud Ibse kuwii uu lugooyay loo rusheeyay ee inaga abtirxigay ee oramada ahaayee abiya isaf yaqaaneen sida loo rusheeyay inaan loo rushaynin ee intii lala wareego hubkii laga dhigay reerahoodii nabadgelyo ku aadan in la yiri ayaa Ilaahay mahadiya oo aad uga mahad celinaya aadna aan si dhowna ula socday xaaladda meesha ay marayso hadda iyo dan maxay inoo walaalayaal waxa weeye ONLF ma aha urur yani shakhsi uu leeyahay ma aha wax dhibaatadeeda iyo dharagteedu shakhsi ku kooban ma aha wax Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi iyo 10 wiil iyo 10 gabdhood iyo 10 islaamood ay dhibkoodu ku koobnaan hayaan ma shacabka Soomaaliyeed xuduudda Eritrea iyo Djibouti laga soo bilaabo ilaa iyo meesha la Ras Kamboni ilaa iyo Nairobi ilaa Addis Ababa ilaa Jigjiga inta joogta ayuu saameyn ku leeyahay boosaasa markiina laga soo dhiibahayay kuwiina soo dhiibahayay inay ku faraxsanaayeen oo ay habbi ku ahaayeen macnaheedu kama dhigna waxay ahayd duruuf ay ku qabsan tahay death or muxuu ahaa geeri iyo nolol inuu shakhsigu dhintay inay wada dhintaan bay ahayd duruufta noocaas iyo saameynta cadadka leh nolosha iyo siyaasadda nagu leh ma aha wax dad iyo ashqaas gaar ah oo yar lagu aamini kara ma aha wiil dhiilkii uu geela ku meelahay wali la ogo iyo gabadh haantii ay biyaha dhabarka ku dhaabinaysay wali sidii loogu dhaansado iyo wiil darawal ah nolosha shacabka Soomaaliyeed ee 30 milyan kor u dhaafaya iyo gaar ahaan kuwa 7 milyan ee dheeraadka ee halka ku nool noloshooda intii lagu haleeyo loo dhiibi kara ma aha waxa weeye ummadu CV baa la akhriyaa shaqooyinka ugu hooseeya ee technical yani ugu hooseeya tacliin ahaan waxa kamid ah darawalnimada iyo cleaning jobka kamid ah wadamadan horumareeynu ku noolaa shahaada la isweydiiyaa hadda tiraahdo indhihii aan qashinka ku arki lahaana waan leeyahay gacmihii aan ku qaadi lahaana waan leeyahay what kind of certificate you are going to ask me nobody will employ you do you have experience do you yaa lagu oranaya markaas innagana waxaan rabnaa intaan gadaal gacmihii u laabanno oo annagoo wada dhaqaati doctorre iyo wada master iyo wada engineer iyo culimo iyo muxuu ahaa ehludiin iyo wax walba leh yaa rabnaa inay maxastu wax noo sheegto bilowgii waan garanaynay siday ahayd sababtay ahaydna waxay ahayd in qof hadduu rabbi ku roon yahay haddaad wax yar oo raashina aad damacdo dad fara badan oo maxas inaad u qaybiso way kugu xoomi marka overwhelming bay kugu sameyn inay ku qabsadaan ugu dambayn intaad u tuurto yaad sida dugaagii korka ka fiirsan iyagoo saa isu haalifahayay aragtidu noocaasay naga noqotay laakiin today we have to correct it haantii maynan gargaarkeedii maynan qabsanin laakiin weli haanti lama daboolin waxay u baahan tahay haantan in la saxo waxa weeye naftii huranimo profession ma aha ninkan waa naftii hure technograd ma aha yani certificate ma aha waa kaadir title ma aha shaqo ma aha profession ma aha xirfad ma aha ciwaan ma aha hooyada soo rafaaday iyo gabadha jeelka ka soo baxday iyo wiilka naftii huraha soo noqday iyo wiilka qurba joogga ahaayee muxuu ahaa xoogsatada ahaayee halgankan u tacaadufahaya ha noqdo ama yani waxay leeyihiin xaquuq bay leeyihiin abaalmarin bay leeyihiin laakiin hogaamin ma laha nolosha dadka go'aan kama gaari karayaan sababta inay go'aan uga gaarayninna ma aha inaan u diidanoon xasdayna ma ahee capacity uma laha xaq yani awood uma laha iyaguna way isdhibi dadkana way dhibi nolosha bini'aadmiga laguma saleeyo history la soo maray lalama noolaada taariikhda hadduu Axmed Gurey soo halgamay he is gone hadduu Said Maxamed Cabdullahi Xasan soo halgamay he is gone haddii uu muxuu ahaa Nasrullahi soo halgantay he is gone haddii WSL soo halgantay he is gone ruux meeshay ka bilaabatay baan garanaynaa meeshay ku dhamaatay iyo sababtay u dhamaatay cid sharixi kartana inaguma jirto nin walba markuu u dambeeyo wuxuu ku oran markii u dambeysay majeerteen waas cabdi iyo Sheekh Cabdinaasir baa gudoomiye ka ahaayo diyaarad Suudaan baa diyaarad xamar kaga soo qaaday that is meel ku dambeysay wax ku sheegi kara lama waxa keenaya weligana noloshanada dadka ay axaadiistu sheegtay oo nabigu calayhi salaatu walaashay markay ummadu baahdeedu dadkeeda maran ee shacabka ee aan waxba garanaynin markay hogaamiyaan kuwii wax garanayay markay ummadda rogmanayso isku sina looma cadaabay ogow oo ilaahay baa wuxuu leeyahay hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun warka wax og iyo nabi maxamed iyo kan waxba ogeyn miyay siman yihiin ma sinaana loogu jawaab in waxyaalaha qaar kood sanab ku noqdo ma aha
oo aad ku dheganaatay inna wajadna aabaa'ana awalow kaana aabaa'akum laa yaclamuuna shay walaa hum yacqiluun hadduuna aabbaha iyo awowgaaba ayna waxba kala ogeyn maxay noqon waxaan leeyahay geeska africa developmentiga ka socda iyo socio-economic integrationka ka socda iyo isku xidhka ka socda ma aha wax kala maaransan kara maaha hogaaminteedana wax ay koox yar iyo ashqaas yar iyo dad social mediaha inta badan hadda terminology ba loo sameeyo la yiraahdo muxuu ahaa muxuu u bixiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxayga baraha bulshada in dadka naga ay go'aan noloshooda ka gaaraan oo Facebook go'aan lagaga gaaro wax la yeeli kara ma aha waxa weeye badweynta Indian Ocean iyo Addis Ababa way isku xirmayaan shacbiga naga hadaanan maanta go'aankiisa aanan wax ka bedelin oo baaqa aan jeedin doona aan lagu dhaqminna li taariikh halayga qoro eraga waxa iga horeeyay ninka la yiraahdo Zakariye Xaaji Maxamuud baa iga horeeyay halayga qoro li taariikh waxa weeye geeska Africa waxaan ku noqon doonaa sidii ay noqdeen nimankii reer Indianiska ay ku noolaa North iyo South America ku noolaa ayay exactly la mid noqon doonaa waxa weeye coronavirus ba maanta loo tabarlaayay do you think in coronavirus shacbiga iyagu ay maanta iska badbaadin karaan haddii ilaahay kuma sababe ugu yimaado kuwii intaasoo technology horumar lahaa waxaan u soo qaadanayaa wax kala ma ahan waxaan u soo qaadanayaa haddii qofku uu noqdo waxtarkiisa iyo waxyeeladiisu hadday waxyeeladiisu badato waxa weeye waxay sharciyada caalamiga waxa dhigaysa in la eliminate gareeyo ruuxu hadduusan gabar iyo galbeed midnaba uusan u soconin oo meel u socda aan la garanayn qolaatu qowlkeedu waxa weeye filinkan waan soo galnay kan neefinteedii kale waxa weeye dadku 90% dad xayi oo nool oo waaweyn oo mudagelin oo wax garanayay ahaayeen inaan markii labaad haddana haantii social media hanaga in powerka Tigray maalowba naloo promote gareeyo oo naloo soo saaro oo la yiraahdo ciidam Tigray oo dowladdu sameeyay Tigray oo xuduudadiisii xidhay Tigray oo diiday muxuu ahaa xukuumadda Addis Ababa Tigray oo sidan yeelay yes Tigray waxay soo mareen haanta gudaheeda waxay og yihiin haantan pressure-ka iyo isruuxa soo socday sida la isu gilgili ayay garanayaan Tigray waxay og yihiin moorgadoodii inay tahay moorge dhalinyaradan garanay waa tookadoodii weeye tookadii Tigray la ruuxi lahaa weeye cidda ruuxaysan inay axmaaro iyo oromo tahay way og yihiin sidaa darteed they will never surrender till the last drop of their blood marka anigu inaan kii la rabay in haanta la geliyo anigana haanta igu ruuxayay Stockholm syndrome baa la yiraahdaa ninku markuu ku dhibaateeyo oo uu muddo dheer muxuu ahaa aad maxbuus u ahaato oo inaad marka dambe isagiiba sympathy u qaado oo hadba kii dhintay ee la dilayay aad u oydo anna ila dila aad raado wax la akhrisan kara ma waxaan leeyahay marka oo nu soo jeedinaya madaxweyne gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdan u soo jeedinaya gudoomiye waxa weeye maalinkii aniga adiga hadalkeena iskugu dambeysay waxay ahayd maalinkii shirkii Casmara ee aad shirweynaha ugu magdarteen aan aadayseen bay ahayd dardaarankii aan ku iri waad garan adiga iyo Maxamed Ismaaciil mid kasta oo kiino soo noqda ururkani anyway it is going to end haddaad adigu gudoomiye ka noqoto Casmara ka soo baxdo ururka meel buu ku dambayno waxa laga yaabaa inaad wada hadal iyo Ethiopia ku dambaysiiso kelmadan ku iri taas ay hadduu Maxamed Ismaaciil qabtana wuxuu ku dambaynay Australia ku dhimanayo sidii kii Sheekh Cabdinaasir iyo Majartan Waas Cabdi iyo Maqtal Daahiri oo aanan garaneyn meeshii ku dhamaadeen yay noqonayaan that was what I told you aniga adigu waxaynu ku wada hadlaynay isku xigeen baan ku ahay wax kala muunahayn oo kula waxa aan ku socono it is a false dream haddaan maanta iska dhaadhiciyo anigu inaan millionaire ahay walaa bi millionaire waxa weeye millionaire kuma noqonayo dreamkaaga noloshana reality-ga Soomaalidu waxay tiraahdaa wartaladii baday soo laba talaabo dhaxo talakaaga ma dhalato oday wiilkiisa la dardaarmayay baa wuxuu ku yiri reerkii meel diraacay deganaayeen u tago kara meel heblana deji wankii hebel ahaana u qal reerkii oo roobuda oo doogiye barwaaqo ku jira wankii sumalka ahaana jaban yahay yuu tagay reerkii intuu raray oo uu meeshii oo abaara dejiyo diraaca yuu wankii lagu amrayna qalay kii sumalkaana waa jaban yahay odaygii baa wuxuu yiri wartaladii baday soo laba talaabo dhaxo talakaaga ma dhalato wartaladood baday soo laba talaabo dhaxo taladin kama dhalato situationka uu Mustafa Maxamed Umar iyo Addis Ababa idinku baad ku jirtaan 1991 baad soo marteen 1992 waxa yimid ninka la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Saadi baa yimid xagee buu maray
حجابه مري نينك اللي يرهدو عبد الرحمن واس محمد قني حجابه مري كورنيل حسن جري حجابه مري أحمد مجيرتين حجاي مري محوها وحجي the situation وحاوي حضار أدوق وهايساتو إن محوها أدنى أنا لفتهاي مصطفى وبي that is a false dream مصطفى أنا لف بقرية وأنا لف وي and this is the reality شعب كمصطفى أنا لف بمثله يا متشا أنا لفنا هانتا إنا يقشي دونيسا أنا لف هانتا هدا يقشو نينك اللي يلاهدو مصطفى هانتو قليا وحاوي مصطفى يا عبد الرحمن لقب مارمان وي إنا الرياليتي يا حقيقة إسلام فاهمان سيب عبد الرحمن وحنكون شيء عبد الرحمن فيري عيدا كاغا فيري عيدا كاغا وحنكوضا حبنا هاغا فيري وركادر كاغا فيري ورقولا هاغا دحا فيري ورقود كاغا فلنتا فيري ورسي فيغودا أخري ورسي فيغاغا أخري ورعدا الله معاملة ميشن كاحيكتا أدون سي فيغا إيا جوجل كوالس من جوجل قرية روحا أوي هاي ميزانك أوليه ونوحكوها وحال لا هاي كوسو تشيدينيا adiga iyo gudigaaga fulinta inaad go'aan degdeg aad qaadataan go'aanka degdeg aad qaadanaysaan waxa weeye inaad kow haday idin suurtagelayso aqligeeda leedihiin inaad ku fikirtaan inaad haanta gidaankeeda inaad qabsataan haanta gidaankeedana ma qabsan kartaan hadaydan bb gelin bb hadaydan gelin oo aydan support muxuu ahaa aydan la midoobin bb oo aydan dhihin we are not going to Norway bb baanu nahay Mustafana gudoomiye noo ah aydan dhihin waxa weeye haanta gidaankeeda ma haysataan salkeeda la idin gelin muxuu ahaa daboolkii iyo baalkii muxuu ahaa nin gixiina waa la idin geejin 25 sano oo kalena waad ruuxi maalinkii 1994 aan duurka u baxnay ina ciid daahir oo madaxweyne ka ah wiilkiisu maanta wasiir buu ka yahay jigjiga naftii hurihii duurka u baxay ku shahiiday wiilkii uu xagarka hoostiisa ku dhalay isagoon wariyaha habeen dheeraga marin oo aabihii habeen arag oo aabihiina dhintay isaguna isagoo 27 jira oo aan waxna qorin waxna akhriin oo gacaguhu jeexjeexan yihiin oo jaahila oo gabar kale oo rafaadsan oo agoon oo aabaheed xagarka hoostiisa lagu dhalay guursaday oo cunug kale oo ina naftii hura dhalay oo gaajisan buu joogaa waxaa la yiraahdaa intergenerational poverty baa la yiraahdaa this is what you are going to develop saboolnimo jiilba jiil u gudbiyo weeye waxaad waxaynayso kan naftii huraha ku maanta dhali doonana waxa xukumi doona ina ciid daahir ku dhala xukumi doona waxaan idin sheegayaa noloshanadu maanta xilligii aanu ku fiirsan lahayn caruur iyo wax magarato maanta ma joogno dad waaweyn baan nahay waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Mustafa wadankan wixii cadaab soo maray wuu soo maray hadalka aan ku leeyahay maanta Cabdi Maxamed Umar ka hadda xiran yaan intii aan la xirin isbedel uunan imanin korna uu u kaadinahay baan kelmadan ku iri baaqan maalinka u jeediyay wuxuu ahaa war dadkan adaa madaxweyne u ah in cabsi kugula joogtay iyo in jacayl kugula joogtay baad xukumay kelmadaasan war dadkan aad jeelka ku waxaan qaarna lagu soo jeebay sidii xoolihii kuwana jeelka ka siidaa kuwana wixii ka siidaa oo aan lafna maalinka waxaan ku iri xilligan antalaa sidii raqda banaanka ka taagnaa la bidilka hoos joogi lahaydeen ma joogtaan geeska Afrika ee siyaasadiisa la soo qajaan qaad Mustafa waxaan ku leeyahay waligeen ma inaan wada hadlin waligaana fariin kuma dirin ku kula shaqeeyana waligeen lama soo hadlin oo xiriir lama sameyn waxaan ku jeedinay oo ku leeyahay wixii dhacay ee soo marnay that's a history ruuxii specifically dhibaato geystay oo aan garanayno oo ina dhibaateeyay oo waxeeyay waan xiraynaa haddaan qabanno cidna kala tashan mayno oo NLF xukun ma hayso xafiisna ma fadhido maxkamadna ma joogto awoodna ma leh ciidan ma leh boolis ma leh siyaasad ma leh aqoon ma leh waxna kaama celin karto waxna kuma fari karto cid allaale ciddii wadanka dambi ka gashay ee garanaysid awood u leedahay intaad soo qabato boolis baad leedahay military baad leedahay para military police baad leedahay intaad amar siiso kulli xidhiidhow muxuu ahaa maxkamadee cid ka hor istaagaysa oo ka celin kartoon ilaahay mooyeen adoonkii ma jirto oo rafna xog kama qaado qodobka kale aan ku soo waxa weeye dad maxasa wiilal maxasa oo dhalinyaro ah oo innocent
oo tira yaroo boqolkiiba 0.05% ka ah boqolkiiba ka ah oo ONLF aabayaashood iyo walaaladooda ahaayeen oo wax soo barto soo luxjitay baa jira oo hadda awooda inay wuxuun xil qabtaan oo wadankii ku soo noqday kuwa inaadeero ilaahay baan kugu dhaarshay ONLF darteed ha u ciqaabi ONLF baad yaad ka soo jeedaan iyo hebel baad xiriir la leedahay inaadeero sidii kuwii hore tegay kuwa ha u ciqaabin wiilasha wixii shaqayn kara oo capacity leh oo muxuu ahaa CV leh oo shahaado wata wadunka waxaan shahaado wadin oo shaqeeyaa ma jire wixii shahaado watay ku yimaad inaadeero ha ku xukumin oo ha oranin muxuu ahaa urur hebel ba ka santahay shaqaale waa wiilashaadii waa kuwad u baxsan lahayd berriti dhalinyarada social media false political muxuu ahaa ideology da aan jirin develop gareynaya ayagana hadal baan oran waxaan arkayay qaar Mustafa inay difaaciyaan iska dhigi iyo qaar inay maadi difaaci iska dhigi waryaa war sanadkeen joognaa marka aad leedahay qabri dahri iyo dhagax buur baa kala xigtay sanadkeen joognaa ninka aaminsan maadi baan qabiil ahaan u difaaci who is Madi? What's the difference between Madi and Mustafa? Ma sharxi kartaan wax jira maaha marka waxa weeye waa baseless way aragtidaasi aragti jirta ma aha waxa weeye waxaan ku baaqayaa nin walba oo aqoon leh nin walba oo mid maadi iyo mid diinad mid ku doona leh nin walba oo garasho leh oo kaashanaya maamulka deegaanka waxaan ugu baaqayaa in shirweyne degdeg ah oo dadka Soomaaliyeed dhulka ku nool iskugu imaanayaan oo ay kaga hortagayaan inaan haanta intaan daboolka la saarin shacabkanagu intay haanta galaan in lagu daboolo kaga hortagaya oo siyaasadda ummadan iyo gobolkan reform gareynaya in lagu dhawaaqan yaan ku baaqaya oo degdeg Cabdiraxmaan waxaan leeyahay haday Cabdiraxmaanow waan ogahay value-gaaga waan ogahay belief-kaagana waan ogahay laakiin is not reality wax sax ah oo dhab ah ma aha waxaan ogahay inaad the man of integrity inaad tahay wax badan baran iyo adigu ka midaysannahay anigu cad walba ma cuno wax walba nin cuna ma ihi adigana waan ku ogahay inaadan wax walba cunin laakiin inaadan aqli badan ku dareenina waan ogahay doorashaha gelin haddaad iga diiday talada aan kuu soo jeediyey ee ahayd inaad muxuu ahaa bahasha gadaankeeda inaad qabsato ah ee ahayd inaad haanta wax ka ruuxdo haddaad iga diiday inaad gacali inaad jeceshay waa ku ogaana waa ku jeclahay waxaad yeeshaa hibernation ururkan iyo dhalinyaradan hibernation geli 12 sano hibernation waxa la yiraahdaa isa suuxin sida bahashan madax ku tida la yiraahday 8 bilood shifta 12 bilood dadkeena siix ururka maanta wiilka ururka ka tirsan koobaad fasalka koobaad ABC loo bilaabo intuu dugsi sare ka baxayo waxa weeye waa 12 sano weey wiilka maanta jaamacad bilaaba intuu master ka qaadana waa muxuu ahaa 6 ama 8 years weey sidaa darteed waxaan ka rabaa inaad u diyaar garowga nooca aad samayso Mustafa aad heshiis la gasho inuu door tookadan aan laga hadlin sagaara tun la kala qabo male harag sagaaraadna iga kacmoyn iga durug male Ethiopia wax doorasho dimuqraadiyad la dhaho ka dhacaysa ma jirto waxa weeye DDS na wayba ka darantay cimrigeed bibara doorasho ka dhicin hadda inay ka dhicin lagaba sugahayo sidaa daraadeed waxa wanaagsan inaad hesho political solution in la helo xal siyaasadeed in ummadan loo helo ayaa lagaba maarmaanka ay u tahay waxa weeye shacabkan kii wax yaqaana 2013 yaa nin qolyihii faraha badnaa ee Addis Ababa ururka u dhaxeeyay yaa wuxuu keenay wuxuu u tagay nimankii TPLF wuxuu ku yiri war waxa u dambeeya ee idinka go'a noo keena qora ONLF oo gashiin 2013 kal fadhigii Eritrea aan tagnay yaa la keenay waan istaagay waxaan ku wuri war waxar laba jira maanta yaday goysa aan gadno waxa la yiri bedelow waxa ogol yihiin odayaasha in howlgab laga dhigo wixii leeb foos oo shaqayn karo shahaada haysto 65 sano ka yarna in systemka laga qayb geliyo ama kililka ha noqoto ama fadlan ha noqoto laga qayb geliyo oo aan ciidankana sidiisan ku qaramaynayna ciidanka dawladda deegaankan ku darayna magaca ONLFna ama ha tirtireen ama magac political party jira ha noqde waa 2013
waril ma reer intan maan qaadan ma hawlga baan qaadanayna bay dheen ma hawlga baan qaadanayna adduunka meel laga hawlgabin baa jirta adduunka caalamka 65 sano professorka muxuu ahaa heart surgery-ga ku takhasusay wadnaha qale ee ardayda jaamacadda u dhiga 65 sano markuu gaadhay la yiraahdaa retired but you have to get out hadduu qaylada deyn waayo 67 sano loo gaarsiiyaa adduunka meel uu ka jiro wixii kale oo wax comment haddaan akhriyay ma jirto laakiin waan akhriyo doonaa insha Allah wax ciidan hawlgabin ma jirto inay ragganagi way noolaayeen xilliga 2008 gudoomiye maxamed cumar cismaan madaxiisa Allah raajiyo caafimaadkana Allah uu xoojiyay warqad baan u qoray maalinkii Bashiir Axmed Maqtal la soo qabtay ahayd maalin ka tilmaaman waana yaa emailladii aanu isdhaafsanay oo sidoodii waxaan ku wuri gudoomiye 1300 oo ciidan yaan xuduudda ka tallaabinay ciidankii Itoobiyana wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay qaateen awoodeenu maanta meesha ay taagan tahay inay hoos uga dhacdo mooyeen kor uga soo noqon mayso sidaa darteed hankeennii weynaa waxaan hayno oon badbaadino waxa inoo goysan aan ku bedelaan ayaga diiday golaha dhexe 2009 research aan ka soo sameeyay markii waxay ahayd Itoobiya ciidamadeedii ka soo noqdeen ee intii Soomaalida ahaydeen u bixinay hawaarinta waaga ay dhulka yimaadeen bay ahayd riboodkan soo gudbiyay erayadii ku jiray waxaa ka mid ahaa ragga golaha dhexe ee daawanaya si fiican bay qoraalada u wada hayaan wax been abuura ma aha erayadii ku jiray waxaa ka mid ahaa dundumo dhooba kama maydhi kar rayada dhooba ka samaysan war dundumo iyada dhooba ka samaysan nin ikraaho la dagaalamayay nin xabashe midna ma jiro waxaan la dagaalamayno waa ciidankeena iyo wiilasheeni dadkeena ma dhamayn karayno kamana adkaan karayno waa inaan helnaa xal siyaasadeed oo tan ka bedelan wixii aan ka soo maray ilaahay bay u xisaaban tahay iyo setback-ga iyo dhibaatada iyo challengeska ay ugu soo gaadhay ugu dambayntii jaaniskii ugu soo horreeyay wuxuu ahaa in mar hadday sidan tahay wixiina lexjecladaa kaa galay you cannot be part of wax yacni meeshu u socda aad garanaysid oo haddee meeshan haddaba reerkiinni inuusan jirin marka hore haddaad moodda meeluu reerkiinni jirin inuu reerkiinni jiro laakiin aad ogaato inuusan reerkiinni xaggaa jirin haddii inaad kusii socoto soo doqonnimo maa that is why I left ONLF waxaan leeyahay marka cabdiraxmaan baaqaan u jeediyey waa qodobkaas oo ah kow inuu haanta gadaanka qabsado oo uu la midooba BB waxa weeye ama kabdacasa soo sawira ama kab karkaan soo sawira this is the reality waxa weeye Hayle Salaasa haanta soo ruxay haddana Hayle Salaasa waa la ruxay oo dhergi baa ruxay waana lala ruxay TPLF baa ruxday waana lala ruxay haddana EBB baa ruxi war ma doonto weeye wadankan waa wadan qobtol ah wadan qobtol waxa la yiraahdaa wax ka kab ah weeye waa dadan dhaqan kama dhaxeeyo diin kama dhaxayso muuqaal kama dhaxeeyo juqraafigu kama dhaxeeyo xoog baa la isku hayaa inay kala tagaana cid ogolaanaysa male haddana example waxa loo soo qaataa Soomaaliya oo hal luqad iyo hal ummad iyo hal qoys ah oo isku abtira yaa laba 30 sano hadda afka ka xidhay oo wax isu keenay lalaayay what do you think in Ethiopia inta hadda la kala diro oo la dhoofanta shado filar dawladda min fadlillah inta la kala dhoo inaad jamhuuriyadda dimuqraadiga ogaadeen aad abuuranayso no do you think inta hadda aad election gasho oo referendum baa qaadi aad tiraahdo inay Addis Ababa iyo Muqdisho midoobaan meel dhaxana jasiirad yar oo la yiraahdo jamhuuriyadda dimuqraadiga DDS la yiraahdo inaad abuuri kartay kula tahay that is the false dream and intelligence-ga iyo garashada aad ku ciyaaraysaan aan waxaynayna weey war shacabkanaga iyo Addis Ababa loo dhaxayn maayo kursiga Addis Ababa aanu saaxiib lanahay qodobka hal la qoro kursiga Addis Ababa maxay dhayn kalamaan habartay ninkii dumaal adeerkay la waay saacada laga bilaabo kursiga Addis Ababa shacabiganaga loo dhaxayn maayo kursigaasan heshiis lanahay dadkanagu waa inay noolaadaan dadkanaga in la buufiyo ma aha waxaan arkayay petroleum muxuu ahaa ceelashii la qodahay sunbaa la buufiyo waxa laga yaabaa inay currently exaggerated tahay laakiin it's going to come reer Indianiskii America markii si kale loo baabin waayay loodii gisida ahayd ay ku noolaayeen baa loo sumeeyay markaasay wada cuneen oo ku wada baabeen intii ka soo hadhayna alcoholka iyo drugska iyo prostitutionka intii loo fasaxay waxa weeye yeena waxba la noolay shacbiganagu inay sidaas sii noqdaan oo mar damba uma baahnin we need to build our curriculum waxa weeye CV-ganaga inaan dhisno oo dadkanagu noolaadaan oo dadkanagu waxbarasho helaan yaan u baahanna hadda waxaan soo maray youth exploitationka
waxaan soo maray iyo waxa caruurta Soomaaliyeed marahayaan wali inay 2020 dadkana u sii maran macaqliba wiilka 30 sano reerkoodu qaxootiga ahaayeen ee intii struggle iyo qaraabo iyo jin loo waceeyay oo Suudaan la geeyay oo wax la soo looxjitay oo shahaado soo qaatay haddana dabinka siyaasadeed lagu ridahayo ee la leeyahay buurta farta loogu fiiqay buurta meesha madaxtooyadu degantahay inay tahay baan u fahmay waliga jijiga maaran laakiin saan baan u gartay inay madaxtooyadu buur ku taalo saasaan u fahmay la leeyahay muxuu ahaa buurta buurta banaanka dabinka noocaas lagu kala dhaxridahayo mar waxaasi wax loo jigi iyo aqliyada ma aha wax allaala wixii igu tala ee dhalinyaradaas ah oo i garanhaya oo wax iga maqlahaya oo laf ka tirsan oo waxaysan oo wax yaqaan cid aan wax aqoonin haday sidan ay ugu caana badan tahay maalin waxaan soo qoray ilaahatul makka ibaadatun wa tijaara nin saaxiibkay oo aad u jeclay baa wuxuu ii soo qoray oo haddana yaani maxaad ka wadaa markaasaan ku uri balaadba haddana idin sheegi wuxuu hadduusan mar wixii wax nacfila ahayn develop garoobay dadkana loo haya sanad buu noqdaa oo laf masana baan caabudaynaa oo dadkanagu aan la soo taaganahay muxuu ahaa ilaahatul makka ibaadatun wa tijaara wax magarataduna waxay caabudayso kuwana ay ku nool yihiin oo livelihood ka dhigan hayaan miya oo shacabka dadkanagu waa enjoy ku noolaan hayaan miya kalla wallahi bayna dhacaynin oo billahi bayna dhacaynin oo tallahi bayna dhacaynin oo gacanta la idinka qaban waxaad yeelaysaan tala inta iga yeelaysa waddanka ku nool waxaysan intaan abtiga u ahay intaan adeerka u ahay intaan saaxiibka nahay intay sii dhaleen shuhadadu kuway dhaleen waxa weeye Mustafa madaxweynihiina maamulka iyo systemka gala nin walba tuuladii aabaha ka soo jeeday hadaad shahaado aad gudoomiye kaga noqoto aad haysato Mustafa ku saxiixiyo u tag gudoomiye ka noqda idinka ka akhlaaq badan kuwii sii joogay idinka ka samir idinka ka sariig badan laakiin corruptionka institution ahaan highly corrupted waxa weeye nin walba kuwa qurbaha ka tagay hadda jooga jigjiga doonaya inay shacabka reer ogaadeen iyo xukumaan waxaan idin leeyahay CV-giina ku bees gareeya wadamadaad ka timaadeen waxaad ka goysaan nin walba waxaad wadankaad ka timid aad ka goysay baad gudaha ogaadeen ka goynaysaa haddaad darawalkii baa lagu ogolyahay ka badan ma goyn kartid waxa weeye waxaad wadata iyo waxaad barataa dadka wax ku tari haddaad nurses tahay oo nurse halkan ka ahay nurses baad noqonaysaa isbitaalada dadka caawinaysaa capacity building baad samaynaysaa haddaad macallin ahayd caruurtaad wax baraysaa haddaad engineer ahayd dhulkaad wax ka dhisaysaa haddaad maamul ahayd maamul baad samaynaysaa laakiin adduunka meel yiraahdo waxaan ka soo baxay kuliyadda naftahuradda ma jirto ama naftahuruhu xaq buu leeyahay wuxuu xaq u leeyahay in nolol loo abuuro wuxuu xaq u leeyahay in lagu appreciate gareeyo oo naftahuradda lagu appreciate gareeyo oo hooyada soo halganta lagu appreciate gareeyo oo rehabilitation loo sameeyo ayay dadkan u baahan yihiin dadkan saasi u baahan yihiin in wax loo qabtay u baahan uma baahna mas'uuliyad wax ayaguna ayna iska oontiri karin cid kale ayna ka oontiri karin in loo dhiibo waxa Cabdiraxmaan waxay dadku u baahan tahay ma si fakti ana arinta waad u garanaysaa si fakti ana waad u garanaysaa sida darteed waxa weeye dhalinyaradu annaga soo cimri seegnay waxaan ku jiraa sidaas oo ay tahay tirada yar ee kartida iyo awoodda u lahayd iyagoo halgamaya inay wax bartaan baan kamid ah falillahi alhamdu waxa weeye miisaanka saara kuwa qurbaha ka yimid miisaanka saara ma jirto hal jaaliyad oo shacbiga deegaanka ka soo jeeda ee ku nool kuwooda dhuuxa iyo waxtar kale ee wadamadan ay joogaan la qabsaday ay ururka ka tirsan yihiin ma jiro sababtoo ay tahay time uma hayaan waalidkoodna uma waxaynin waxa weeye kuwa qurbaha joogayna way ku soo khasaareen kuwa gudaha ku joogna tirada yarta meel ama Suudaan ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama meel kale ha noqoto ee ka soo looxjiitay systemkan iyo dawladdan dhisantay karkaarka hal la qabsadeen madaxweyne Mustafa Maxamed Umarna ha ku daba faylay waa baaqar idin jeedin idinkaan idinku nasteexaynaya oo idinku heelinaya Mustafa ugu ma heelinayo Mustafa wax meel hadda banaan oo kuunu idinka cayriyo mooyeen meel iska banaan oo hadda ruux walba iskaga qori karaba ma jirto laakiin you deserved inaad mar kale dabinkii siyaasadeed ku dhacdaan kala annaga soo marnay annaga waxaan la yaabanaa long time sababta aqoonyahanka reer ogaadeeya oo halganka u galilay sababtoo tahay waan jibaysna maxay aqoonyahanku soo gal aqoonyahanku wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsi dadka ku anfaco
wuxuu u baahan yahay inuu nolol iyo wixii ku sameeyo jamhadnimana intaa midna ma agtaallo waxa weeye jamhadnimadu bini aadmiga kaa caydhin hadda dadkeena reer miyiga ee caadiga ee aan jamhadda ahayn waxay leeyihiin social institution bay leeyihiinoo waa dad wax barto oo macallin quraan wato oo isu yimaada jamhad duur iyo geed xagar uu hoos gala cadow ka carar weeye muxuu baranayaa wuxuu baran karaa male waxaad ku shaqayn kartana male matiibaad nagu celinaysaan oo generationkii saddexaad baad hadda abuuraysaan generationkii saddexaad yaad abuuraysaan waxaanu hayn muxuu ahaa xayla salaasaan ka qaxnay oo mingistaan ka qaxnay oo malisaan ka qaxnay abiyana ma ka qaxaynaa oo haddana maxay yemen dib ugu noqonaynaa wallaahi waa maya mustafa waxaan leeyahay mustafaw nin dhalinyaro ana waa tahay nin aqoon-yahanana waa tahay oo wax bartay waaqicna waad fahansan tahay ha collaysana nimankan waa maxas weeye haddii ilmaha carruurta ah ee aad dhashay ama adeerka u tahay hadduu kugu khaldamo ma la ficil qaadan kartaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi kuwan waa laguu cadaabi maxas weeye innocenti weeye waryaa kuwii jeel ogaadeen dadka ku ciqaabahayay ee ina ilay iska xidhi baa hiiro ah kuwii ina ilay uu jeel ogaadeen intuu ka subxaanalaysta iskaga xidhay ee intaan la xidhin dadka ciqaabahayay baa hiiro ah oo maanta nolosha dadka go'aaminaya kuwii ay ku xidheen ayagoo intay xidheen oo ciqaabeen haddana lagu soo kar xidhayna wax isweydiinhaya male ina adeerow gacaliye rag wada dhashay baynu nahay waxaa yeelaysaa gabdhaha ooyahaya iyo dadka aad xabsiga ka soo daysay muxuu aha aad maaldhowta la hadlaysay oo NLF ma aha ilma mustafa maxamed cumar weeye ilma mustafa maxamed cumar inay yihiin qaado oo qodobka intuu qubku yidhaahdo had liq cid iga dambaysana ha weydiinin cidnana ha u ciqaabin war waxaan garanayaa 1994 yaa waxaa 1995 aan dhaho yaa waxaa shir lagu qabtay bisa 94 bayd kala sixi maayo shirarkan jaaliyaadka ee wareega shirkiisii ugu horreeyey buu ahaa waxaa lagu qabtay waddanka Germany Ludwigsburg gudoomiyihii admiraal maxamed cumar cismaan yaan iskugu nimid sheekh ibraahim cabdallahna allah yarxamuhu wuu yimid waa maxamed cumar cismaan maalinka uu go'aansaday inuu onlf soo galo wey shirkii buu ka soo qayb galay wuxuu yidhi sheekh ibraahim allah u naxariistee malisa warqad ii soo qoray buu markaasuu yidhi admiraalku safka hore fadhiyey yuu kadibna muxuu ku yidhi wuxuu yidhi ii imow oo aan wada hadallo oo mustaqbalka Ethiopia aan wada dhisno deedna maxaad ugu jawaabtay waxaan ku yidhi buu 3 shardi kow xuduudda ogaadeeya ka bax ee ah soo gelin 2 ciidamada waddanka ka jooga kala bax 3 madax banaanida ogaadeeya ictiraaf markaasaan kula hadlahayaa maxamed cumar maalinkaasuu go'aansaday inuu ONLF galo 98 markuu gudoomiyaha loo doortay wuxuu ii sheegay in uu 35 askari mise 37 naftood hore inuu la wareegay buu noo sheegay maanta markuu jigjiga soo galahayay marka laga reebo dhowrkii boqol ee wiil laga keenay Eritreana 37 baa gudaha ogaadeen loogu yimid maalinkan lahaa gudoomiye maanta mar haddii wasaaradii gaashaandhigga la joogo fadhi kala ma hadhina maanta aynu balaan-biir raadinana waxa weeye ciidankanagu markuu ugu yareeyay 6 ama 7 kun buu ah haddana haraagi in adeerkay doonayaa inuu xayndaabkii ku celiyo waxaan baaqaygii iyo hadalkayga waan idinku dheereeyaan u malaynayaa salaadii maqribna ma aanan tukanin waana xilligii aan ugu talagalayna waa la joogay khulaatul qowlkaygu waxaa weeye cabdiraxmaan sheekh mahdi waxaan leeyahay ina adeerow xaqiiqada waad ogtahay doorasho waqti ha ku luminin doorasho shuruudaheedana ma buuxisid dalkana dad xukuma ma haysatid CV-ga dadka kugu hareeraysanna maadan akhriin caqliga iyo loojigna maadan isticmaalin in adeerow haanta shacabkeennii haantii ay ka soo baxeen iyagii tigree dib intaad ugu celisay ninkaxa loo dheerayo yaan mar labaad la ruuxin war mar labaad dadka yaan la ruuxin haddaad doonaysa inay ONLF iyadoo xisbiga intay ku guulaysato ay kilil amis ama DDS whatever we call it ay inaad xukunta aad doonayso 12 sano hibernation aad u baahan tahay 12 sano inaad dhulka hoostiisa intaad gasho inay wiilashu shaqo tagaan oo gabdhuhu shaqo tagaan oo dadku tacliin galaan oo waxbarasho galaan oo adoo awooda inaad 5 wasiir yeelato 5 wasiir oo ururkaaga mabaadi'da aaminsan magacaaban kara saaxada siyaasadda kaale ma haysatid you don't have it
it's a fact you don't have it waxa lagu ceebaynayana maaha sababtoo ay tahay urur halgamahaye oo duur ku jira duurka jaamacada laguma dhigto waxa weeye mustaqbalka ummadana waxa weeye wiilasha iyo gabdhaha sharafta leh hiilada iyo kaalmada u baahan waxa weeye iyaga lagu bahalayn kara iyagu isma waraabin karaan dadkana ma waraabin karaan mustafa waxaan leeyahay mustafa mas'uuliyadaada qaado adaa dadkan madaxweyne u ah adaa dadkan xukuma ceelkana adaa ku jira anigii intuu kulamada ilamada waa ku garab taaganay waana ku taageeraynaa waxa weeye ka bilow siyaasadaha iyo xasiloonida shacabkan ka bilow kow wiilashan iyo gabdhahan ritaaniiska qaxootinimada ka soo noqday wadanka ku soo noqday wixii ay qaban karaan shaqo shahaado haysta waxa weeye shaqaale oo laf baatihiin iyo muxuu ahaa wixiga ha u fiirinin waxa weeye nin weyn bay haadi cuntaa nin weyn bay ceeb qabataa nin weyn bay waxaysantaa xaqiiqada iyo reality-ga meesha yaala waa taas duruufihii iyo dhibaatooyinkii iyo tacaddigii soo dhacay wax la xisaabin karo ma aha guri Soomaaliyeed oo deegaanka ku yaala oo laga ooyin oo laga dhibaatoonin ma laha waxaan hadda ka hor muddo hadda 15 sano laga joogaa waxaan ka fikiraa alla igo waxaan ka fikiraa baan ku dadkan waxa aan ka yeeli lahayn goortaba ilaahay fursad noo siiyay inaan meesha tagno dadkan waxaan ka yeeli lahayn dhaqan xumida akhlaaq xumida dhibaatooyinkii ay geysteen say u wada deganaanayaan gabdhihii la dhabar garaacday la kufsaday muxuu ahaa la xumeeyay ilmaha laga dhalay waxa daris ah kii la xumeeyay intee dadkan cudadoodu socon karaysa waxyaalo si weyn looga fikiro way marka wax walba lama soo waxayn karo dadku qaarna qaar amar bixinayo madaxooda caddi geysanaya bay ahaayeen qaar dad uu maxas oo ciidan oo amar la siinayo wixii bay ahaayeen dadkanagi muxuu ahaa kuwana ku iyaga dilay annaguna iyagii ma layn karayno oo ma waxayn karno laakiin waxaan samayn karnaa wixii aan indhaha laga qarsan karin waajib ah dhacay oo hebel gaaran in la yiraahdo gabadh meeshan ka qaylinaysa kamid yahay oo kuwa xirxiray kuwa xirnaynba wixii dacadi saas geystay waxa weeye guddi maxkamadeed oo cadaalada yaa intii loo sameeyaa baaritaan la soo sameyn kara waxa dadka ugu heelin kartaa cadaalad ugu sameyn kartaa xataa wixii in la document gareeyo oo tuulo walba wixii ka dhacay dilkii ka dhacay tacadii ka dhacay in dadkii dib loo waxeeyo yaa imaan karayso waxaysmaysa waxaad u baahan tahay walaal waxaan kaloon ka codsanayaa madaxweyne inaad shirkaa ku baaqdo inta aan la gaarin Agosto iyo wixigan haddii ilaahay cudurradan dadka lagu soo daayay ilaahay inaga qabto oo aan fursad helo ay la iskugu safri karo in dadkan political reform gobolkan in laga sameeyo u baahan tahay waxa weeye dad Tigray la soo noolaa iyo dad duurgal soo ahaa oo wali hadana duur yacni waqti bay qaadanaysaa rehabilitation baan u baahan aniga hadda kula idin la hadlayo yaa rehabilitation u baahan hadda sanadkii hadda inaga tagay yaa gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Ali Buro qoran yaa Finland ugu yimid waxa loo sameeyay jaaliyada waxay u sameysay xaflad yar xafladii aniga oo hotelkii lagu qabanayay soo galiya waxaan ka irideedii oo wiilal dhalinyaro oo qoladii DDSI loo oran jiray oo taagtaagan waxaan ku fikiray waa carooday markaan bilaantoodii arkay waa bisaraxatan waxaan ku fikiray inaan salaabin markaan wiilashii u soo jiro wax aan umanayn wax 10 talaabo 5 talaabo ka yar yaa waxa maskaxdayda ku soo dhacday in ciidamadii ONLF la xareeyay iyo kuwii liyu booliska isku meel ku xareysan yihiin yaani waa ninkaygii isu haystay inaan advanced ahayba yaa emotionkaygu levelka maraya sababtoo ay tahay 28 sano ayaa waxaan ku soo jiray muxuu ahaa yaa nac ku soo jirnay marka time bay qaadanaysaa aan nacaas iyo wixiga dib iskaga waxayna marka waxaan leeyahay dadkan rehabilitation bay u baahan yihiin dadkan soo dhaweey dadkan muxuu ahaa dhalinyarada yaan mustaqbal seeg labaad lagu ridin waxay gudoomiye Cabdiraxmaan waxaan leeyahay ama doorasho ama u diyaar garow dadkaaga saad u diyaarin lahayd oo inaad 10 sano inay dadku nabadgelyo ku noolaadaan iyo waxna bartaan oo adiga oo muxuu ahaa dad dhisan haysta doorashada u soo diyaar garow oo inaan ka ahayn maamulkan gargaarka la qabso xisbigan BB la midow laakiin durbaan baan garaaci calan baan tumi hadda bal qood iyo xir iyo xinin baa ilaahay baadin ku dhaash bal ceel ogaadeen shacabka ku nool iyo dadka hunting and gathering society-ga la yiraahdo Amazon forest ku nool farqiga aan asturnaanta dharka ahayn ee u dhaxeeya ma sheegi kartaa
dadka haragoodii iyo saantooda lud u dhexeeyaa kuma jiro biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan nolol ma haystaan yacni wax nolol la odhan karo caalamka ka dadka markaasaa waxaa mashruuc looga dhigayaa calan baa la dejiyey iyo calan baa la saaray iyo muxuu ahaa hoggaanka warfaafinta gaadhay iyo what kind of muxuu ahaa yani insult sababtu waxaa weeye odaygan sakaraadka ah ee dhimanaya wuxuu carruurtu wuxuu ku seexsadaa ONLF baa barwaaqo idiin keeni oo aabow gaajada ka baxaysa waa hashi u rimanayd wey realityguna sidaa maaha gudoomiyuhu wuu ogyahay realitygu maaha marka mar haddaan reality ognahay cuqubada dadka aan ilaahay kaga cabsanno dadkan nolol bay u baahan yihiin inay degaan bay u baahan yihiin inay qaxa karnaystaan bay u baahan yihiin in developmentiga muxuu ahaa ceel ogaadeen iyo koora laga soo bilaabay u baahan yihiin iyo kali laga soo bilaabo oo la yidhaahdo muxuu ahaa kuwan ciidanka ee la kala caydhinaya intii la shaqaalay in la yidhahdo waddooyinka u dhisa ciidamada u qora wixiga u qora mushaarka shaqada ay xaq u leeyihiin in la siiyo la yidhahdo mushaar qaato oo dhulka qado oo dadka nolol u sameeyo waddooyin u sameeyo ceelal u qado iskool u waxeeye waxaa oo dadkan muxuu ahaa waxbartay ee dibadaha jooga soo xarooda oo kaalaya dadkan iskool u dhigo waxbara in la dhahay u baahan yihin dadka waxbarasho ma haystaan wiil la xambaarsan yahay baa macallinka degmooyinka iyo tuulooyinka oo ku mushaar qaata what kind of life is that waxaan leeyahay nolosha geeska africa inaan caqabad ku noqonno ma aha caqabad inaan ku noqonno geeska africa ma aha innaguna inaan caqabad isku noqonno ma aha waxaa weeye intergenerational buffert inaan develop garayno ma aha waxaa weeye wiilkii aabbihii naftii huraha ahaa ee xagarka hoosta ku dhashay kaas kuu dhali doonana xagar hoosti inuu ilmo ku dhala ma aha saacaddan laga bilaabo waxaan leeyahay shacbiga soomaalida ee ogaadeen iyo DDS ku nool gudi iyo dibadba waa inay u diyaar garoobaan si aanan haanta intaan ningaxeeda la xidhin si aanan haanta gudaheeda u geli lahayn intaa inaan ka shaqayno isku raacno wey maamulka hadda halkaa ka jiriya Mustafa haddaan lala shaqaynin walle kuwa idinka daran baa iman Mustafa ninkii nacabow ku si rasmi ah ku nacab baa iman sidaa darteed Mustafa wixii aan ka dhigano wey Mustafa haddaan madaxweynaheena inuu yahay aan ka dhigano oo uu og yahay inuu Cabdiraxmaan garab taagan yahay oo uu og yahay in aanu garab taagnahay oo uu og yahay inuu Bashiir Axmed Maqtal garab taagan yahay oo uu og yahay inuu garab taagan yahay muxuu ahaa Maxamed Shariif garab taagan yahay oo Riyaala garab taagan yahay oo isku wixii la yahay waxaad cid kale asaga ka weydaan cid kale kama helaysaan doorashana kuma soo baxaysaan marka sidaa darteed in la ismacaanaysta lagaba maarmaan wey shacabka noloshiisi iyo go'aankiisi iyo masiirkiisana waxgaradka ummaddu inay go'aamiyaan weeye maxastu inay go'aamiso maaha maxastu inay go'aamiso ma aha waxaa weeyaan hadalkaa inaan idhaahdo oon halkaa soo joojiyo sidii maanta baan idiin sheegay fardul cayn inuu igu yahay baan allah igu aaminsanahay fardul cayn buuna igu yahay nin walba oo ilamidoo wax yaqaanana fardul cayn buu ku yahay arrintaa iyada qodobka isaga sidaa darteed waa in arrintaa loo diyaar garoobo siyaasadda ONLF ay waxaynayso raas Kamboni bay saamayn ku leedahay Kismaayo ku leedahay Gaarisay ku leedahay Boosaasay ku leedahay Garaway ku leedahay Djibouti bay ku leedahay ha saamaynin marka waxa weeye haba u soo kala sokayso haba u kala daraatee saa darteed si waafiya in loo fikiro oo timeka la saxo lagaba maarmaan weeye waxaan aad iyo aad u salaamayaa sharafna aanu hayaa shacbiga reer ogaadeen ee soo halgamay ee xubnaha ka ah ONLF sharaf ballaaran baanu hayaa xumaan iyo wixii idinkuma ogi waxa weeye waabaan joog ka sameeyo waxaana ururkeena problemkiisu waxa weeye fiilana waa ku soconnaa indhahana waa ka wada xiranay marka hadba midka ugu horeeya safka ugu horeeya ku jira yaa biciriirsan markaasuu arkay inay dow ka daadanay markuu yidhahdo waraabood dow baan ka daadanayna way ku tuurahayaan tuugtuug dhalay dabadaa jeexantay godkii baa lagu tuuri war daba ma jeexmina godkii baan arkaa kii ku xigay baa haddana wuu biciriirsan waraabihiin la gudow baan ka dhacayna dabadaa jeexantay jigjigaa looga yeedhay godkiin baa lagu tuuri walaalayaal joojiya sharaftiinaan jeclahay wanaaggiinaan jeclahay waad ugu weyntihiin aad baan idinku hanweynahay waxaad u baahan tihiin in nolosha si rasmi loo waxeeyo idinka ma aha kuwa aan la hadlahayo kuwa aan la hadlahayo waa hogaaminta ururka wey hogaaminta ururka waxaan leeyahay Cabdiraxmaanow xubnahaaga CV-gooda akhri haddii maanta lagu dhigo do you have the capacity to lead the organization yani adiga shakhsiyadaada kama hadlaye ururkan ka hadlaya ONLF capacity ay shacbigu ku hogaamisa ma leedahay taas weytaan ka hadlayo midinku ma is hogaamin kartaan bilcilka hoosan isku hogaamin weyne jigjiga iyo dulqabowna waa isku hogaamin laadihiine
aqooni wax kalena ma ahe dad iska kiin jecelo ilaahay abuurtay oo geeska Afrika ku nool oo idinka sharaf badan oo iska kiin ixtiraam badan oo iska kiin lajacayl badan ilaahay ma khalqine aqoon baan jirin garashaan jirin dadku waa maran yahay waxa weeye waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiin hadalkaasi qandhe i haysay bay ahayd oo aad iyo aad ii haysay oo dhidiga keentay oo fardul kafaaya ku waxaynayay ilbaaran shacabka inaan lugoynin wiilasha qurbaha ka yimid waxa weeye darahoodii iyo caruurahoodii iyo reerahoodii ha ku soo noqdeen shacbigana ha la jiheeyo waxa weeye nolosha dadka iyagu wax lagu khamaari karo loo soo shaqo tagi kara maaha wax ruuxu uu livelihood ka samaysan kara maaha wax boorinka la iskaga ilaalin kara maaha this is the future of the people from Ras Kamboni ilaa iyo the border of Djibouti iyo Eritrea dhexdooda ku taala cidifka ugu shisheeyay midku iyo magaalada ku taala ma garanaye waxa weeye noloshooda wax saameyn kula weeye marka gargaarka la idinka qaban waana la idinka hor istaagay mayaan idin leenahay waxa weeye haanta gudaheeda mar kale na lagu celin maayo na lagu ruuxi maayo cimriga naga calaacal iyo calool xumo la noolaan mayno wax garadka naga hogaamin aqoonyahanka naga hogaamin annaga idin hogaamin ma yeelayna mar kale ina dadka nagu haanta intay gudaheeda galaan aanu calaacal iyo muxuu ahaa simpatiyo iyo Soomaalnimo inaan raadino waxa weeye shucuubta geeska Afrika dad wada dhashay weey waxaan aaminsanahay in masiixigeedii iyo muslimkeedii iyo carabkeedii iyo cajabkeedii iyo baantuugeedii iyo kushaytigeedu inay wada noolaan karaan dal nugaal ma aha dunyana geel ma dadna nin kula dhashay ma aha waxa weeye mar damba ma yeeli karno inaanu ku oyno jamhuuriyadda Soomaaliya soo dhiibtay maxay jamhuuriyadda Soomaaliya way ku soo dhiibaysaa the interest of the people is first ma aha inaan taageerayo laakiin this is the reality waxaan raadinaynaa 22 sano yaan raadinaynaa exit meel aan cyclekan kaga baxna raadinayn ma cyclekiiba haddana dib noogu celinaysaa oo leedihiin muxuu ahaa haddana mar kale durbaanka oohinta haatuma oo meel hebla la iga soo dhiibay meydkayga la soo dhiibay jeel ogaadeen yaa la ii furay waxaaya waryaa waxa weeye maridaga allah anaa isdagay mar labaad dagana allah muxuu ahaa allah anaa isdagay waxa weeye kuma jiri karno daban 10 jeer kuma dhici karno intaasaan ku soo gabagabeynayaa aadna waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh